Somaliland waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya muranka siyaasiga ee u dhexeeya madaxda xisbiyada mucaaradka iyo weliba xukuumadda. Laga soo bilaabo furista ururada ilaa maanta waxaa taxane noqday kolba xalqadii soo dhacaysa khilaafka labada dhinac, iyagoona midba midka kale cambaarayn dusha kaga tuurayo. Hadaladana hawada la isku marinayo, kala dheerashada iyo weliba iska lulashada mas'uuliyiinta ayaan waxba dan ugu jirin shacabka reer Somaliland. Hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka waxay dhigeen mudaharaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac tiro badan. Mar kale ayay sheegeen inay mudaharaadyo hor leh ay dhigayaan ilaa inta laga soo afmeerayo khilaafka ama xal siyaasi ah laga gaadhayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Biixi oo mar wax laga weydiiyay goorta uu soo afjarayo khilaafkan siyaasiga ayaa waxa uu ku jawaabay: khilaafkaaga siyaasadeed madaxweyne adiga iyo mucaaradkan madaxweynaha u tahay idinka dhaxeeya shacabka Somaliland waxa isleen goormo madaxweynuhu soo afjarin ma u sheegaysaa shacabka Somaliland waqtiga rasmiga ah khilaafka ka heshiinaysa mar walba uu afjaray xaqayga khilaaf ma doonayo waan gartay sharciguna raaco waan gartay sharciga hadii la garan waayana sheekh tafsiir raah loo doonto waan gartay maxaa isku khilaaf soo malaha iyo dalka la hagaajiyo annaha la hagaajinay waayahay shacabka reer Somaliland ayaa iyaguna u tagla isla markaasina aan qaadan karin in dushooda lagu loolamo isla markaasina la isku mariyo hadallo dhaliil si kastaba ahaatee khilaafkan ayaa mid gundheeraaday iyadoona la mooday in xalkiisa dhinac la iska dhigay. Mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Somaliland waxay sheegeen inaanay sinaba u aqbali karin doorasho dalka ka dhacda oo ka soo horeysa tan madaxtooyada isla markaasina haddii ay 13 November ku qabsoomi weydo doorashada madaxtooyada ay dalka kaga dhawaaqi doonaan dowlad ku meel gaadha waa siday hadalka u dhigeen.